صلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أخياري ما أنت وحان نكوها يا برنامج هذه هذا حيصة بدن إن شاء الله تعالى oo run ahaantii maaragtay baadhis cilmi baaris iyo baaris dhaba true investigative journalist waxaad maqasheen akhyaaraya maad aragtaan kuwa Soomaalida ee journalism investigative sheegta inay yihiin dad wax baara ase yeeshee candhe iyo qurun iyo dumar iyo naagi iyo waxaan qabiil iyo iscaydeen iyo maaragtay bahdilka Soomaalidu bay ka shaqeeyaan hase yeeshee maanta waxaan idin hayaa wax yaab leh haddaad kuwana qaadanaysaan waxaan idin sheegi doonaa Allahu naxariistay wasiirad خديجة محمد ديرية واحد ديري يعني ما أنت يدين شيء يا دولة يراهدو. هل كان واحد هرتينا يا الوزير دي بهركي هرتينا تعالى الله ونحرسته دمتي ما رأيت جيبوت كل دمتي. وزير دي واحد لنور شيء معناه هنا ماشي كل دمتي. أنت أنا قلين وحان ربا إن هل وحبان دون يا إن دركتان. هل كان سنتينس إنجليز بين هوريا الله كوفيد vaccine designed to slow kill. عربدة كوفيد 19 talaalka waxa loo sameeyay in dadka lagu dilo tartiib ogaada hadda dadka saacada qaar bay ku dishaa dadna maaragtay toddobaad maalmo saabilo hase yeeshee dadka lagu talaalay ee maaragtay lagu sameeyay waxa ay ku dishaa hadduu Ilaahay idin rooyahay si tartiiba soo 1 sano 2 sano 3 sano 4 sano qof kasta oo vaccine ta qaatay amar Ilaahay ma ahane boqolkiiba 75 waa ay dili doontaa waa inay dhiman doontaa kolka wasiiradeenu miyay qaadatay cirbadan Fariid inageeya boga wasiirada investigation dhamaan intu saaya maanta hadduu Ilaahay yiraahdo halkani waa iska maaragtay waxaan intu saaya maaragtay wasiirada runtii waxa dilay bogeeda ayaanu galeynaa Khadiija Maxamed Diiriye waa kan soo waxa garateen maaha kadib waxaynu yeelaynaa waxaynu fiirinaynaa xusuusta waxaan idinku yiri wasiirada waxa dilay cirbada ayaa lagu duray haday qaadatay hadii ayna wasiiradu cirbada qaadan of course waxaan oo dhan amar Ilaahay bay ku dhintaan ogaada laakiin sabab baa jirta soo sababtii baad in hayaa hadii wasiiradu ayna cirbada qaadan waxa la sheegay waxba ka jira cadow baa sumeeyay waxba ku dhacay ama si guud bay u dhimatay laakiin hadii cirbada qaadatay waxaan intus doona cadeymo ah cirbada hadday qaadatay inay cirbada dushay waayahay wasiiradu saad ogtihiin waxay ahayd wasiirad maaragtay ay wataan dad waxaan la yiraahdo beesh lixaad oo ah dawladaha deeq bixiyaasha ay galbeedka imaaraadka waxa Soomaali run ahaantii lafta ka nacab laakiin madaxda Soomaaliyeed ee ah kuwa aqliga yar kuwa qiyaamay waxaadna ogaataa nin kastoo Soomaali mas'uul madaxa ama qof kastoo Soomaaliya jooga oo cirbada vaccine ka qaatay waa u dhiman doonaa 80% amarka Ilaahay baa iskale waayo vaccine ta Soomaaliya la geeyay waxa la yiraahdaa AstraZeneca waa Ingiriiska ka timid waxa weeye Oxford ba samaysay waa ta ugu khatarsan ee dadka disha 90% lagama kaco waa dil ma garateen kolka wasiirada waxaanu yeelaynaa bogeedii waa kan wixii ugu dambeeyay post gareysay waa December 18keedii maalmo yar ka hor soo waxa garateen maaha wasiiradu biisi bay ahayd aad bay u post gareyn jirtay anigana maaragtay waqti dheer bay ku qaadatay inaan baaro ilaa 3 sano la soo dhaafay wax alla waxay qoraysay page walba oo wasiirka ayaan 24 saacadood intaan maaragtay tarmuus dheer oo qaxwa u soo qaatay ayaan baariyay wasiirada inageeya marka waxaan helaa in soo yaab kale waxaynu tageynaa khiyaar filter baa la yiraahdaa horta aan intuso Facebook markaa tagtid waxaad ogaataa dadkan hadda maaragtay dadkan waqtigan nool hadii social media yihiin hadday leeyihiin social media hadday leeyihiin oo ay dhintaan wixii dilay halkaas ku jiraa waad ka heli kartaa dadka cadowga ku ahaa dadka dagaal kula jirtay waxay sameyn jirtay qofkani wuxuu sameyn jiray ninkani wuxuu sameyn jiray kulli waxaas oo dhan halkan ay ku jiraan kolka aynu tagno bishii waxaanu tageynaa sanadkii 2022kii bishii 30aad bishii Maars aynu tageynaa oo bishii 3aad hadduu Ilaahay idin rooyahay 30ka markay ahayd wasiiradu maxay sameynaysaa khiyaarey maalinkan waa maalinka wasiirada dilay wasiiradu ehle iyo qaraabo iyo family ma leedahay dacweeye shirkadda AstraZeneca ee Ingiriiska ee vaccine samaysa iyada ayaa dishay waan intusi doonaa cadeymo Fariid inageey wasiirada waxay tiri wasiiradu بري أو أربعة أو
taariikhdu tahay way soo gaabisay 31 maarso waxaan jira kulan okay waa dawladdii hore ka gudub waan isla garanay halkan okay way qof ehlada iyo amaanisay halkaas businesskeena ma halkan waa cunug yar waan dhaafinayaa I don't like ilmaha yar ma jecli ilmaha yar imagekoodii waxa inaan soo saaro oo intuso ka gudub Fariid waa tan maalinka dishay waa maarso maaragtay 30keedii 2022kii waxay tiri wasiir Khadiija dadkan oo dhan bay ku taagaraysay soo wax garateen ma aha waxay tiri Professor Maxamed Yusuf walaalkeen iyo Doctoresa Fartuun agaasimaha cisbitaalka Banaadir iyo dhaqaatiirta oo ay ugu horeyso wasiir Fawziya iyo wasaaradda caafimaadka mahadsanidin dhammaantiin way u mahad celinaysaa Fariid maxaa dhacay waa kan maaragtay wasiiradii waatan professorkiina waatan xafiiska wasiiradii kula kulantay duqii markaa madaxweynaha farmaajina sawirkiisa waa kan soo maaragtaan xusuustaada Khadiija markaa waxay ahayd wasiirka ka hortaga masiibooyinka dabiiciga iyo maamuleynta dhibaatooyinka the natural disaster waxa luqada lagu yiraahdo managementiga ahayd Fariid waatan iyadoo maaragtay wasiiradii iyo professorkii cisbitaalka iyadoo la kulantay waa kuwan kadibna qaybtii talaalkii joogtaa dad bay la joogtaa soo maaha weli ma aragno iyadoo oo wasiiradu talaalkii qaadanaysa waana maarso 30keedii Fariid aynu soconno okay halkan waan ku soo noqon doonaa okay halkan waxaad ku aragtaan halkani waa wasiiradii oo cirbadan qaadanaysa cirbaday qaadatana waa AstraZeneca soo wax garateen ma waana ta ugu khatarsan website la dhaho Relief Web ee arrimaha geeska Afrika macaluusha dhibaatada ka warranta ayaa ay wasiiradu shir jirayd ku qabatay baahiyay April 2022kii in wasiiradu ay AstraZeneca ka gudoontay deeqa 300,000 baana Soomaaliya la geeyay waxayna sheegtay in 100 markaa 120,000 oo Soomaaliya lagu talaalay qof kasto 120,000 Soomaaliya lagu talaalay uu dhimanaya la socda inta kale Soomaali badan baa lagu talaalay waxaadna ogaataa vaccine-tani dadkii Soomaali xukumi jiray ee elite-ka ah it will wipe out way tirtiri doontaa wax alla wix cirbada qaatay cadayn marka waatan fiirsada halkan soo waxa garatan ma heesta shaydaanka aad ka gaabinayaa waatan wasiiradu qaadanaysa khiyaaray soo ma aragtaan halka shaqada ka jira waa bogeedii waa 30kii bishii waatan wata cirbada dishay halka shaqada baa kaga jira wataas waxa weeye cirbadaas dishay naagtaasi waa gacan ku dhiig le talaashay waa mutalo wasiirkiiba qof kala kalkaalisa caafimaadba waa ka wasiirka labada dumarka dilay cirbadii iyo wixii soo waxa garateen ma aha way ku faraxsan tahay shiishboosta Nobel inay ogaatay ahayd wax ka badan qof jaahil ma aysan ahayn qof kasta cirbada qaatena jidka waxaad martay wasiir Khadiijo damjuduud ma dilin cidla sud kuma durin akhyaaray cirbadii baa dishay Soomaali saa ugu sheegan laahay waa dad culimadoodii iyo caamadoodii isku mid yihiin waa dad la qiyaamay waa dad la baabiyay weeye soo maaragtaan wata wasiiradii maaragtay gacanta bidix baa laga talaalay waxa weeyaan tani gacanta bidix haduu yahay sharciga nimankan vaccine-ta ee shaydaamada oo insooda waxay yihiin waxa weeye macnaheedu waa talaalkii koobaad appreciation bay tusaysaa subhanallah nafteeda qiyaantay wallahi waka she destroy herself dadkii waxa ka dhigaysa dadka madaxdaana saan baa idin dambeyn waa hagaag okay hadda wasiiradii waan aragnay meel baabiyay waqtiyadii ay waxaan bilaabmayeen wadan dhan oo 1/3 haduu 3 milyan 10 milyan mar qura wada dhibatay black days ka sheegi jireen laakiin way fakareen waxay u fakareen war dadkii waa kan magaalo isugu yimo waa tan dhibtiisii badanayso oo dadkii uu isdhexgalayay how they can survive sidee u noolaan karaan therefore waa la maalgeliyay baadhitaana la sameeyay kan baa la sameeyay waxa la gaadhay in la helo aqoona in dadka la talaalo talaalku waa xanuunkiyo nasakhanintiisa badan baa lagu mudayaa oo qofka bini'aadamka ilaahay jirkiisa leesho control waxa luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo in tirada dadka lagu dhameeyo nimanka yuuda waa shaydaamo waxay aaminsan yihiin inuu ilaahay khaldamay abuurdiisa sida darteed ayagu saxayaan xusuusta suuratul muuminiin Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala fatabaarakallahu ahsanul khaaliqiin ilaahay baa barakaysan oo tabaaraka oo wax walba ka nasahan ahsanul khaaliqiin ka ugu fiican inta wax abuurta inta kale wax abuurta ma jiree
iyagu ruux ma abuuri karaan dubaab ma abuuri karaan wuxoodu waxaa la yidhaha centeric life waa nolol caagiya balastic iyo electroniga sidaa darteed waxay aaminsan yihiin vaksiinta adduunyada inay ku dilaan waxna ku saxaan waa been culimad waxba kama jira khiyaaray vaksiin wax daaweysa adduunka lama sheegin ilmahan soomaalida ee galbeedka jooga ee cudurka autismka wada dhacay dhammaantood tallaalka ama vaksiinta ayaa u keentay vaksiintu ilmaha ayay baabi'isaa ilmaha ayay dishaa dadkay baabi'isaa anigu maan aqoon macnaha markaan bartay laakiin waa khalaas anigu weligeena ma qaadan laakiin hase yeeshee macnaha dadka kalena waan uga digaa waxa weeye waxani waa halaag waa baaba waxba kama jiro waxa weeye waa burburkaaga iyo khasaarahaaga haddaad vaksiin qaadato sidaa xildhibaanad wasiirad allah u naxariistay khadiijo maxamed diiri ay noqotay ayaad noqon doontaan war fideogan soomaali ma gaarsiin kartaan waxaana caqli ma lahan caqliga daanyarada iyo dabeeraday leeyihiin soo wax garateen ma aha haddaan intaa ku socdo waad dhiman doontaan waxaana waxaa loogu talagalay waa wax la yidhaahdo weeye 2030 ajendaha 2030 oo ah in tirada dadka adduunka la dhimo 70% dadka la dilo cirbaduna waa waxa koobaad la adeegsanayo dadkan adduunka oo dhan ama lacag bay qaateen ama waa doqomo sida sheekhaas oo kale dadkoodii bay khiyaameen sida wasiiradaas oo kale nafteedii way halaagtay Soomaali kalena way halaagtay kolka waxaad maqasheen oo maaragtay waxa la idinku yiri wasiirada akhyaaray xinjiro ayaa kore baa la yidhi maaragtay wasiiradda hadduu ilaahay idiin roo yahay wadnaheedii iyo dhiiggeedii okay xinjiraha ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa balaad caloud waa xinjiro dhiigga gala soo ma aha xinjirahan dhiigga vaksiinta ayaa keenta aaladana waa wax connector daawada videogii ugu horreeya janalkayga ku jira waxa weeye waxani waa anteeno waa xinjir waa centeric maaragtay cloud maaha dhiig dhaba maaha waa wax isku jira kolka waxaani waxaa loogu talagalay inay qofka wadnaha weeraraan sambabka weeraraan keliyaha weeraraan internal organka waxa la dhaho ama uurku jirta xubnaha weeraraan ay isku duuduubaan kadibna qofkiisa lagu dilo waxaana gebigiisaba waxa weeye maaragtay hadduu ilaahay kuu roon yahay waa magnetic weeyaan telefoonka laga control karaa towerka laga control waa adigu waa arrin dheere bal videoga ila daawada ninkani moviga la yidhaahdo diet surely ayaan ka soo download gareeyey kowdhaha ninkani vaksiin buu u dhintay nin caafimaad qaba u ahaa 45 jir buu ahaa kadibna qoyskiisii ayaa baalmar hayrgareeyey ayaa baalmar shaqaalay baalmar waa dadka maaragtay dadka meelaha ay ku dhintaan dadka qala weeye waxaas waxay kaloo ay shaqaaleeyeen hadduu ilahay yidhaahdo dadka baara ee waxa uu dhintay baara si loo ogaado waxaan waxaa dilay autopsy baa lagu sameeyey ninkan waa la qalay bal la daawado wax yar videogu waa yara maaragtay haddaad yara qalbi jilicsan tahay ama ilmo kula joogaan fadlan ilmahaas meesha ka dhaqaaji ilmaha ka dhaqaaji laakiin waxaa laga saaraya waxa la yidhaahdo balaad caloud oo xinjiro oo kala waa lugtay uga jirtaa ninka lugtay uga jirtay wadnahana way uga jirtay qaybta wadnaha eedino tusin xanuunkeeda aad iyo aad weyn waxaad daawan kartaan ma aha tan waa cajirkiisa ayaa laga soo saaray bawdada fiiri balaad caloudkan vaksiinka ayaa jirkii ayrankii iyo waxa wixii ku jiray ka soo ururisay kadibna waxaa ka samaysay waxaasi waa electronic conductor waa electric conductor waa wax dadka lagu dilaahiyo waa la socodsiin karaa wadnuhu gelaya aakhirka waa wax dadka dila khadiijo xildhibaanad waxaasaa dilay waxaa keena vaksiinta soo aragtaan maaha wakaa fiirsada wakaase fiirsada qof kasta oo vaksiinta waxaas laga saaraa balaad caloud weeyaan yaa dadka macnaha uu yahay oo kale hase yeeshee waa centeric balaad caloud waa xinjir macamalaho dad sameeyey sida nalkoo kale waa centeric light waxani waa xinjir dad sameeyey waxaana kooskaraysa oo sababta vaksiinta waana wixii idin dili lahaa dhammaantiin inta qaadatay amar ilaahay maahane wakaas soo ma aragtaan khiyaaray idinku fogeyn maayo waan idhaafinaya wakaas kolka vaksiinta maxay yihiin kuwani vaksiinta dhammaanteed waxaa iskale nimankan sayniista yuhuuda iskale shirkadaha soo ma aragteen pharmaceutical companies kulli iyagaa leh soo waxa garateen ma aha Pfizer waa kan adduunyada baabiye mid kamida Moderna Johnson AstraZeneca waata Soomaaliya la geeyay waana taan laga kicin Galaxy Smith Pharmaceutical kulli waxa soo dhan soo khiyaaray waxa garateen ma aha dhammaantoodna waa kuwan
kulli waa kuwan waa nimankaas noloshaada muku aamin lahayd miyaad ogtahay dadka inay shaydaan caabudaan shaydaan inuu aadan been u sheego jannada ka soo haray sooma ogdi iyaguna waa beenaalayaashii markay kuleeyihiin vaccine-tan way ku daaweynaysaa covid-19ku waa been waa durugii cudur loo bixiyey magac loo bixiyey cudur cusub maaha waa been sababta covid-19ka loo keenayna waxay tahay cirbadda inaad heshaan vaccine-ta inaad heshaan tallaalku waa ka waxdilaya waana ka dadka baabi'inaya khiyaaray soo wax garateen maaha waa kan covid vaccine designed to slow kill wakaas waa dhakhaatiirta runta daacadda wakaa garaafkana wuxuu tusahayaa in dadka maaragtay dhammaantood covidka qaatay ay saa wada dhiman doonaan kulligood saasay wada noqon doonaan kolka haddaan ku noqonno xildhibaanadeennii waxa waaye waxaa dilay tallaalkii ay qaadatay baa dilay soo wax garateen ma akhyaaray tallaalkii wasiiraddu qaadatay ayaa dilay waatan iyadoo qaadanaysa mar kale iyadoo qaadanaysa wasiiraddii waatan kolka waxa waaye macnaha saa ogaada nin kastoo madaxa ama wasiira ama madaxweyneha ama wuxuu yahay haddaad cirbaddaa qaadatay sidaa alla u naxariistay xildhibaanadaas ayaa kugu dambayn doona doqon bay ahayd wallaahi waa la khiyaamay ilahay dembigeeda dhaafo waayo qof muslimaday ahayd inkastoo xijaabka ku xumayd hase yeeshee boggeeda anu marka waqti dheer baan geliyey waan baaray qoftani qof muslinay ahayd ramadaanta aad bay u jeclayd mar walba salliga nebiga meeshuu ugu jiray kolka waxa waaye hase yeeshee waa la khiyaamay haddii la khiyaamana haddii rajo male kolka xildhibaanad khadiije maxamed diiriye waxaa dishay AstraZeneca vaccine oo nimankaasi iska leeyihiin wataa cirbadaasaa dishay haddii xildhibaanadani dad iyo qaraabo leedahay baadhigeeda autopsy ku sameeya baadhigeeda baadha ha tuurina balaad kalood baa ku jira waxaan hadda intusaa ku jira xinjiraha ku jira jirkeeda qof kasta oo vaccine disho xinjiraha ku jira waa laga helaya caddayna dacweeya oo xaqeeda u soo celiya intaan mar kale kulmi doono intaa ka hor khiyaaray soomaalidan dhahay waa la dilay waxaan waa fidnabadayaal anu ma aqaan shirkadahan AstraZeneca iyo yuhuuddan taajiriinta inay lacag siiyay akhyaaray waa sayid cabdiraxmaan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu